farxadda xurriyadda iyo neecawda bannaanka ayaa maanta dib ay ugu soo laabteen qaar ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo muddo dheer ku xirnaa xabsiyo kala duwan kadib markii ay waayeen awood ay ku bixiyaan qaan lagu xukumay iskaashi bini'aadinimo oo dhexmaray wasaaradda cadaaladda taliska ciidanka asluubta iyo gabar muxsinad ah oo aan magaceeda la shaacin ayaa suurageliyay siideenta 5 dhalinyaro oo xukunadooda u dhaxeeyay 6 bilood ilaa 2 sano inkastoo ay dhammaysan muddadii xukunkooda haddana waxay xabsiga ay ugu jireen sababo la xiriira bixinta lacagihii lagu xukumay afyeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed gaashaanle sare Cabdiqani Maxamed Qalaaf ayaa sheegay in talaabadan ay tahay mid ugub ah oo muujinaysa naxariis garab istaag loo fidinayo bulshada nugul isla markaana ay rajaynayaan inay noqoto bilow dadaalo ballaaran taliyuhu markuu arkay dadkaas ninka ugu yar 48 maalmood uu muddo dhaaf ahaa wuxuu go'aansaday in dadkaas lacagtaas laga bixiyo taliska ciidanka asluubta oo gabdhuhu ka qayb qaateen taliyuhu ugu horeeyo iyo wasaaradda cadaaladda iyo muxsiniin kale oo Soomaaliyeed ayaa lacagtaas baxshay taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed taliyuhu ugu horeeyo ayaa tadawarkaas iyo horumarkaas waday haatana waxaa soo socda wajigii labaad iyadoo ay ku aadan tahay maalmihii Ciidul Adha oo loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay ka qayb qaadato dadka la sii deyn doono dhalinyarada la sii deeyay ayaa muujiyay dareen farxad leh ayagoo sheegay in maanta ay tahay maalin cusub oo noloshooda ka mid ah kuna mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysata xukunadooda si ay mar kale ula midoobaan qoysaskooda una dareemaan farxadda ciida waxaan ku xukunay sanad iyo qaanti lacageed sanadkii waa dhameystay waxaan iska bixiyay qaanti lacageed maadaama ay dhibtay iska asluubta Soomaaliyeed iyo wasaaradda oo u mahad celinayay inta gacan geysatay maadaama asluubta gabdhaha asluubta oo maxalla xirnimadeen oo wixii noola haystay oo qaanta noola haystay naga dhiibeen iyo hay'adaha dhammaan waa maasiin iyo taliyaha ciidanka asluubta waa dhameystay maanta waxaa samafalka Ilaahay noo soo diray si degdeg ah hay'adaha iyo asluubta inta waa u mahadnaqaynaa Ilaahay loo mahadnaqaa waana mahadsan yihiin sida saliimka ay noola shaqeeyeen tani waa dhacdo tusaale u ah isku duubni bulsho iyo dhacdo samafal ayadoo markii ugu horeysay ay si wada jira ugu howlgaleen hay'adaha dawladda iyo muwaadin muxsin ah si loo caawiyo maxaabiis muddo dhaaf ku noqotay xabsiyada dalka door muuqda waxaa sidoo kale ka qaatay gabdhaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed taliska ciidanka asluubta oo taliyaheena horkacay waxaa go'aansanay in lacagaha yaryar oo dadkan walaalaheen oo dhalinyaro mustaqbal hadda soo baxay oo loo haystay xukuumadoodan ay dhamaadeen in lacagtaas anaka isxilqaano lacagta yar lagu leeyahay aan ka bixino waxaan go'aansanay oo isku xilqaanay inaan wiilashaas 5 ah wixii qarashaad ah lagu leeyahay inaan ka bixino oo iyagana reerkooda iyo familkooda ay aadaan dhanka kale ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka mudane Farxaan Xuseen Maxamuud ayaa si weyn u bogaadiyay dadaaladan isaga oo ku tilmaamay mid dhiirigelinaya dadaalada iyo naxariis isku dheelatiran wasaaradda cadaaladda ayaa iyaduna cadeysay inay taageersan tahay howlaha noocan ah dadkii xabsiyada dhameystay xaggan looga ihsaan sameeyo ihsaankaas iyo samafalkaas laga shaqeeyana oo shaqadaada wadaan waan ku dhiirigelinaynaa garabkiina taaganahay sidaan haddaba uga qayb qaadanay baan ka badanay insha Allah iyo xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku diyaar u leeyahay inuu uga qayb qaato oo arintaas waan ku dhiirigelinaynaa saaxiibadan la sii deynaya jaaniska helay ma waxaan rabaa inaan kelmad dhaho niman dhalinyaro waaye jaanis baa hesheen dabcan waxa laga yaabaa dambiyada ku eedeysnaydeen inay kala duwanaayeen waxaad experience ama khibrad ka hesheen xabsiga wuxuu yahay waxaad ogtiin tabartiino de qofkii waa kana ihsaanka idinka la idin sameeyo maanta munaasabadan laga hadlayo waxa laga yaabaa in muddo aad u xirnaydeen lacagta maanta la idin ka bixinayo ama xuquuqda la idin ka bixinayo xabsiga la idin ku xukumo mar hore aad dhamaysateen marka qofkii
ku laabta wixii uu shalay ka shaqeeyay ee uu dambiga ahaa ee uu xabsiga ku galay برينو وكولا تليها عصبنا ماشى مركو يمادن عرفتان آذا وشقينا يقيبينه كلاعي مرك آذا نسود بيننا آذا وشقينا إن شاء الله وزارة وحيدنا لا وكما سنتين قد قدمانتنا أنت كجرتوا لنا كوبا محل دا عيدا كسلوبته يقيبها كلو لنا وحرالين تكمتاي عرفتان إن لقالوا قد الله سمايو ده كان وحياله حقوقه يقول لي أيوة أنا دمستي محل دا حبسيادي إن لوفو ذيو لقبحيو wasaaradda cadaaladda taliska ciidanka asluubta iyo bahda garsoorka ayaa ballan qaaday in la sii wadi doono dadaalada lagu caawinayo maxaabiista kale ee dhammaystay xukunadooda balse aanan awoodin bixinta qaanta ayagoo ugu baaqay dadka muxsiniinta ah inay ka qayb qaataan samafalka gaar ahaan xilligan barakaysan sidoo kale waxaa si gaar ah loo ammaanay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Saraakiil Maxamed Sheekh Xasan Xamuud oo door muuqda ka qaatay hergelinta hawshan bini'aadanimo isla markaana hormuud ka ahaa dadaalada lagu garab istaagayo maxaabiista iyo dib u habeynta nidaamka cadaaladda ee dalka Sergio Qaran TV Baydhabo